kulan ay soo qaban qaabiyeen maamulka iyo odayaasha dhaqanka degmada Buurdhuuba ayaa ka dhacay degmada kaas oo loogu mahadcelinayay guddiga dhismaha buundooyinka hay'adda Al-Raxma injineeradii iyo kambanigii sameeyay sahanka buundooyinka oo soo dhamaaday isla markaana baaq loogu dirayay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa jira ayaa ka qabsoomay degmada Buurdhuuba ee gobolka Gedo. ugu horeyn waxa madasha ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyagoo sheegay muhiimadda uu leeyahay sahankan. xafladan waxaa loo dhigay buundooyinkii gobolka Gedo oo muddada sanooyinka agoona dib badan lagu qabay labada ka go'naa dhammaan Soomaaliya annagana shacab ahaan iyo dal ahaan ugu dhib qabnay. ilaahay baa mahadle wax walba marba bilowdaan waxaan u mahadnaqayaa marka koowaad anigoo ka hadlaya afka odayaasha degmada Buurdhuuba magacaygu leeyahay Ibraahim Guuled Faarax. waxaan horta u mahadcelinayaa dhammaan guddiga ka shaqeeya arrintaas laga arugiyey isqaamay iyo hay'adda Al-Raxma oo ayaduna ka qayb qaadatay oo maanta soo gabagabaysay baahidii buundooyinka loo qabay. waxaan u celinayaa ilaahay baa mahad baan u celinayaa arrintaas Al-Raxma iyo guddigii mataqaanaa gobolka oo hawshan ka howlana la mid baan nahay ayagaa loo qaabisay loo shaqeynayay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. cid kasta oo meeshaan ka qayb qaadatayna mahad baan u celinaynaa. waxaan u marayaa xafladan soo gabagabowday hawsha hadda laga hayay awaltii baar dheeraa soo gabagabowday haddana tii Buurdhuuba waa saaka gabagabaha horumarinayaa sistamkii laga qaadahayay. ma aha buundo in naloo dhisay oo qalabkeedii la keenay ma aha waxaa kormeer buu ahaa saan anuu qaybayo injineer ma yihi in la ogaado ciidda culayska ay qaadan karto iyo tanka fuuli karo iyo birtay qaadan karto waxaan saa ku yidhahda waa caqliyan ogow anugu injineer ma yihi maadaamaana lahayn adduunka buundooyinkii miisaan bay soo maraan anagu miisaan ma lihin meeshii oo 20 tan ah waxaa laga 40 tan in la saaro si culayska fuuli karo buundooyinka birahaas loo ogaado si buundada dheerarkeeda iyo baaxadeeda loo ogaado si biyaha kala sarreynta inta laga kormarin karo loo ogaado si kaliyaasha ku soo darahayo hawliga biyaha ay ku keeni karaan loo ogaado. anigu injineer ma yihi waxaan u maraynayaa qiimayntaas un bay ahayd baan u maraynayaa si ciid loo qaado oo loo soo baaro hawshaas soo hadday mar soo gabagabowday waa xiritaankii xafladda baan filaya. waxaan intaa ku daraya horta meeshaan dhaqaalaha ku baxay hadda laftigeeda dhaqaalo yar maaha wax walbana dhaqaalo iyo waxay doonayaan hanti bay doonayaan in wala nin gobol in garab suuqa dad oo burbur dowladda lahayn deegaanka noo burbur wixii noo taag oo nin suuqay buundadaas ahayd buundada noo burburtay walni Soomaal ummadaan bay geedi ka shirhiin dadka masaakiinta ah oo dhuxush geedaha dhista walwalba ku noole dadku soo dhamaatay ma codsadaan ummadaha islaamka dalka joogan ama dibadaha jiraan in walni gobodan. xubnaha guddiga iyo hay'adda Al-Raxma ayaa warbixin ballaaran ka siiyay shacabka degmada Buurdhuuba iyo maamulka qiimayntii ay sameeyeen injineerada. shalay isdii tookay ayaa shaqadii noo dhamaatay waxaan noo dhamaaday dadii ku soo tireynay barnaamijkii assessment waxaan si gaar ah ilaa shaqada ka qayb qaadatay oo ugu horeyso jaaliyadihii banaanka oo maalkii ugu bixiyay dhammaantood annagoo aan kala qaadayna waxaan mahadcelinaynaa bulshadii contribution la baxday oo garabistaaga muujisay oo guddiga oo buundooyinka soo dhigaysay guddigii shirkadii assessmentka loo samaynaysay iyo injineeradii voluntariga ku shaqaynayay oo loo dhexeeyey guddiga iyo kamariga si adag u soo dhaweystay martiqaad iyo sooriyo iyo soo dhaweyn isugu daray oo mahadcelinaya. waxaan rabaa inaan u mahadnaqo maamulka degmada runtii iyo amniga dhammaanna garab istaagay hawshan u garab istaagay. waxaan kaloo u mahadnaqayaa odayaasha dhaqanka haddii aan lahayn
dhismaha buundooyinka gobolka gaar ahaan guddiga dhismaha degmadan Baardheere Buurdhuubo aan joogno oo runtii haddaysan ayaga ahaan lahayn natiijada hadda maanta la soo gaaray iyo meesha la joogo midna aan gaari lahayn ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala allana waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala maanta oo maalin jimca oo ilaahay ka rajeynayna inay tahay saacatul ijaaba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka dhibaataysan dhibka uu naga qaado ee buundooyinka uu noo dhammaystiro intaa kadib dad badan oo jaaliyada ayaa sahankan ka qayb qaatay waxaan rabaa inaan halkan ka xuso jaaliyado fara badan oo runtii qaybka ah ugu horeyso Norway Toronto Denmark iyo Toronto waxay iyo qoliyihii kale oo Mareykan iyo Ingiriis iyo dhammaan jaaliyadihii ka wada qayb qaatay hawshan saanka waad guuleysateen waxaad ku guuleysateen inaad tihiin dadkii ugu horeeyay ee mashruucan ka qayb qaatay dhammaan shacabka reer Buurdhuubo iyo gobolka dhan الله يبارك meel kastoo joogtaan ilaahayna waxaan ka baryaynaa biasmaa'ihi wa sifaatihi alculaa inuu noo fududeeyo hawshaan runtii maanta aan marayno gabagabadii sahanka aan marayno ilaahayna aan ka baryayno wax khayr badan inuu ilaahay nooga soo yeersiiyo tabaaraka wa tacaala wa sallallahu alayhi wa sallam. ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Buurdhuubo Cali Shariif Cabdullaahi ayaa u mahad celiyay dhammaan dadkii ka qayb qaatay bilowgan fiican marka koowaad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo suurtageliyey inaan maanta halkan soo gaarna marka labaadna waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan bulshaweynta ka qayb qaadatay maskax iyo muruq iyo maalba gelisay ka soo shaqaysay inay dhaqaale soo ururiyaan oo ay ugu tabarucaan walaalahooda ay buundooyinka ka go'een cid kasta oo ka qayb qaadatay waxaan leenahay mahad idinka gaarto intaas ka badan baad mudan tihiin